waa dhalinyaro badan waqtiga ay hawsha lahayn soo hor fadhiistaan dukaan macaamiishiisu aad u badan yihiin galab cadceedu madaxa la sii galayso godkeeda gabar uu ilaahay ku manaystay qurux iyo asturnaan ayaa soo hormartay goob ay fadhiyeen dhalinyaradu dhammaan waa labada jalaacay gabadhii markaasaa la isku qabsaday anaa la hadlayo maye anaa la hadli doono dhalinyaradii oo dhan waxaa la waayay mid ku dhiirada inuu la hadlo gabadhii wiil ka mid ah dhalinyaradii ayaa soo kaxay oo la hadlay gabadhii sida laba qof oo isgaranaya oo kale walaal sideed tahay baryahan kumaan arag miyaad joogtay ayuu ku yidhi walaal waan wanaagsanahay alxamdulillaah haa walaal waan joogay ee isku kayshay kuma xasuustay adoo raali ah intaas markay ugu jawaabtay ayuu ku yidhi oo walaal ma sidaa ayaad isku masaxdaa isagoo dhoola caddaynaya walaalo waa hebel waxayna ku tiri walaal iga raali ahow waan degdegsanahay ma kulmi karnaa mar kale laga yaabaa inaan ku soo xasuusto haa walaal xaafadiisoo halkaa ma aha ayuu ku yidhi nambarkaaga isii waan soo wada hadlaynaaye ayuu sii raaciyey sidii laba qof isgaranaya gabadhii oo yaaban ayaa ugu jawaabtay walaal haye waa kaas nambarkayga ee nabadey intii ay sii socotay waxaa ku soo noqnoqonayay hadalkii wiilka iyadoo isleh wiilkan ku garanaya ee aadan garanayn waa kuma muuqaalkii wiilka ay u bogtay wiilkii intuu dhalinyaradii ku laabtay isagoo qoslaya ku yidhi haye ma aragteen laabla kacdeene lugana kuma taagnidiine haa war saaxiibow adigu nin adag ayaa tahay gabar haybad eebbaheen siiyey weeye ku adkaaw inanta ayay ku yidhaahdeen goor fiid ah ayuu nambarkii gabadhii wacay habeen wanaagsan walaal sideed tahay waa hebel ayuu ku yidhi markaas ayay ayadana ku jawaabtay walaal waan fiicanahay iswaraysi dheer kadib waa la ballamay maalinkii oo dhan waxa uu inanku isku diyaarinayay sidii uu dhaadhin lahaa jacayl uu u qabo gabadha balse wakhtigii aad ayuu u dheeraaday oo waa uu yaaban yahay waxaa gaadhi weyday saacaddii ballanta goortii ballanta ayaa la gaadhay waa fiid jawigu aad u fiican yahay irkina lahayn wax fad ah wuxuu kaga soo horeeyey goobtii ay ku ballameen isagoo isleh bilow gabadhu kuu jartaa bal waxaa si kadis ah isagoo isla sheekaysanaya gadaashiis kaga soo baxday gabadhii salaan diiran iyo soo dhoweyn dabadeed waa la iswaraystay waxa uu sheegay inuu jacayl u qaaday gabadha isla markii ay kulmeen kana dalbanayo inay la qaado dhankeeda waxayse ugu jawaabtay walaal waan ka xumahay walaalo ayaynu nahay oo jacaylkan aad sheegaysaba waxaa ka weyn walaalnimada dhexdayna taal mana jecli inaan ku degdego xidhiidh aan kula sameeyo ayay ku tidhi raggu waxa uu dumarku ku yahay sida xarka geedka ku yahay markuu ku celceliyey weedho aad u jilicsan inantii way aqbashay jacaylkii balse waxay u sheegtay inay shuruud ku xidhayso waxay ku tidhi axdi ma ila geli inaad jacayl sidaan kuula bilaabay aad ila dhammaynayso igana ballanqaad nolosha inaadan marnaba igu cidlaynaynin oo aan isku noqonayno ol iyo diirkeed waa ballan aan kaa qaadayo inta noloshayda ka dhiman inaanan kugu cidlayn doonin nolosha aanad u tahay wehel ayuu ugu jawaabay isagoo raaciyey tixdan haddaan hiigayga xanaqa ku seexsho nafta kuu hibeeyo ihoo ku idhaahdo ragga aamin maaha oo layskuma haleeyee bilow aan hadhowtiyo xalis aan mutaa naftaad ii hibaysay aan hagardaamo hujuun iyo ciil haydaar iyo naxdin hoobay ugu dhaaran hagarba danteenna muddo dheer kadib xidhiirkoodii waxa uu noqday mid dadkii oo dhammi ay ku sheekaystaan sida ay isu jecel yihiin noloshana ay isugu faraxsan yihiin asxaabtoodii waxay ku odhan jireen indho aan hebel iyo hebel ahayn ma lihid wiilkii ayaa ku jawaabay boggaan kugu sharaxayo shafkaan kugu sitaaye kalgacaylkan shaac baxay ka ilaali shaydaan nacab shiida baa jiree shiido inaan u quudhiyo shalow inaan kaa tuuraba caashaqu ka sharaf mudan dadku sheeko badane shuwaac lagu hirtaane kalgacalka shaac baxay uma quudho shiish nacab maalinba maalinta ka dambaysa waxaa badanayay isfahan labada dhinac ah oo inanku mar waliba inanta ku qabsanayo waxyeelo yaryar kadib markii uu bilaabay inuu gabar kale oon iyada ahayn sheeko la wadaago waxaa yaraaday kulankii iyo hadalkii waqti walba joogtada ahaa gabadhiina waxay weyday toddobaadyo inankii meel ay kala soo xidhiidho ma jirto
wuuna beddelay telefoonkii uu watay number kale ayuu qaatay tallo ayaa ku celiirootay waxay u qortay warqad uu dhiibtay mid ka mid ah saaxiibadii si uu u geeyo fariinta iyadoo leh anigu waxaan ahaa qof aan jacayl soo arag dhib iyo dheeftiisaba jacaylka waxaan ka aaminsanaa inuu yahay farxad aan dhammaanayay markaan ku jeclaanayay anigu ma garanayo sidaan kuu jeclaaday waxaan kaa filayay sidaan waxaad ahayd qofkii iigu horeeyey ee aan jeclaado weliba si dhab ah markaad xubsatay inaan indho kale oon adiga ahayn lahayn ayaad waxaad la soo xorbaxday weji cusub dulqaadkaagii iyo xiisahaagii way yaraadeen aniguna murugadaydii way badatay qaali waan kuu xiisay ma qiyaasi karo sida ay naftayda kuu tabayso haddii aad maanta ii xumayso oo aad ileynayso maxaad jacaylkan iigu abuuraysay miyaad ilowday inaad ii ballanqaaday inaadan nolosha idlayn doonin jacaylka adaa i baray mana rabo inaan ilbiriqsiyo ku waayo adna waad iska kay dheeraysay ma aqaan ruux aan adiga ahayn sida loola dhaqmo wax walba adigaa i baray ii noqo sidaad ii ahayd haddaad doonto hayla hadlin oo ha i soo xidhiidhin balse markaan kuu baxdo teleefoonka haygu dhegaysan wejigaaga hayga qarin anigaa kuu baahan maanta noloshayda uma malaynayo inaan kaa maalmi karo waad mahadsan tahay noloshaydii galab uu roobku mihigaan ah da'ayay ayuu si lama filaan ah u soo galay dukaan ay gabadhu ka adeeganaysay isagoo roobka ka gabo isleh waxaa isku dhacay indhahoodii maxaa kugu dhacay oo beryahan warkaaga aan waayey maxaad iiga soo xidhiirin weyday fariintan kuu soo dirayna aad iiga soo jawaabi weyday ayay ku tiri si degdeg ku jiro balse waxa uu ka dhaadhiciyey inuu ka maqnaa magaalada meel kalen howl shaqaa u tagay waayahay aan is aragno ayay ku tiri waxay ku noqotay laf dhuun gashay naxdin aad ah balse waxa uu badbaaday dabin uu u maleegay oo ahaa mid been ah maalin kadib ayaan is arkaynaa waxay ku tidhi xubbi wax ii sheeg siday wax u jiraan waxba hayga qarin wax walba waa sidaan kuu sheegay ayuu ugu jawaabay oo sawdigii teleefoonka watay habeenkii dhaweyd ma yaqaali waxaan ka soo qaatay saaxiibkay hebel oo aabbo lacag ii soo dirayay ayaan kaala soo hadlay ayuu ugu jawaabay xubbi miyayna nolosha axdi wada dhigan aaway noloshii miyaa aan ku heshiinin wax ma kuu sheegaa ayuu ku yidhi haa ii sheeg waxba hayga qarin ayay u jawaabtay markaas ayuu ku yidhi jacaylkii waan liqay sidaa darteed ilaahay dhinaciisa kaaga gargaaro way niyad jabtay waxa uu ku leeyahay iyadoo laaban ayay ku tidhi wax ma kuu sheegaa anigana haa ayuu ugu jawaabay markaas ayay ku tidhi balankii aad qaadiyo wacadkii habaalmarin nafteydana badbaadi aboowaadi la'aanta dhimashaan ka doorbiday walaal dhimasho daaye dhulgariir ha kugu dhaco ma anaad wax ii dhimi kolna dhogor shabeel xidho kolna dhixirka naagaha wuu isaga dhaqaaqay isagoo ku leh ilaahay ha kula jiro habeenkii hurdaweyladii weyday iyadoona kolka fikiraysa kolna go'aan qaadanaysa waxaa kuu soo noqnoqonaya hadalkii jacaylkeedii waxay dhinac isu rogtaba waxaa mud soo yidhi cadceedii barqadii ayay go'aan ku gaadhay inay dharka ugu quruxda badan xidhato si ay ugu tagto meesha uu joogo waxay ka sii iibsatay batrool iyo kabriid dukaan jaar la ahaa waxayna ugu tagtay goob suuq ah dad badanina joogaan goobtan inta badan wuxuu ku ciyaaraa shax inan ag fadhiday ayay ku tidhi inankaas sii jeeda ee shaxda ciyaaraya ii soo jeeday walaal adigoo raalli ah wuu u soo jaleecay waaba gabadhii intuu soo kacay ayuu balwaran ayuu ku yidhi waa nabad ayay ugu jawaabtay ee wixii aan kugu lahaa waxna isma kaan soo duxeen dan ka hadal ayuu ku yidhi ka hadlay ayay ugu jawaabtay waxay tustay inay dhalo batrool ay kabriid gacanta ku hayso rabtana inay isgubto haddaad afkaaga iga odhan weydo jacaylka sidaan kuula bilaabay ayaan kula dhammaynayaa waa sidii ay hore go'aan ugu soo gaartay inay isgubayso hadda ayay u sheegtay si bilaa naxariis ay ku jirto isla weyni ayuu u jawaabay waan isgubayaa ah haddaad doontoba is ololi wuu ka dhaqaaqay iyadoo wiilka lisii hadlaysa ayay ku tidhi
erayadan. darta anigoo u duloobo daranyoobaad idacal martee duulaanka jacayl dhaaxoo idloon ilmada daadiyo diibta qarsadee hansi dumareed nafsi daran baan kugu dulfuroon dushaada dhigee duxda hadalkeeg adigan darta duni u naco isku dilayaa. waxay tin ilaa cirib isku shubtay betroolkii dhalada ku jiray kadibna waxa ay isqabadsiisay kabriid mar kaliya waxaa isqabsaday dad aad u weyn iyo qaylo dadkii suuqa joogay ayaa iska soo jabay waxaa la isku dayay in la damiyo dabkan ka dulxulcaya gabadha isgubtay nasiib wanaag waxaa lagu guulaystay in la damiyo dhakhtarka ayaa loola cararay gabadhii si loo badbaadiyo nafteeda halista gashay nasiib daro isagoo qadar yar markaas uun maqan ayaa waxaa u yimid wiilkii ay wada ciyaarayeen shaxda isagoo aan fariisan una sheegay inay isgubtay gabadhii hiblo ahayd loona qaaday dhankaas iyo dhakhtarka fajac iyo yaab kadib waxaa isaga ay naxsan oo wejiga ka muuqato murugo aad u badan uu u jihaystay dhankaa iyo dhakhtarkii loogu sheegay in loola cararay wax yar kadib waxaa u soo gaadhay isagoo neef tuuraya dhididna uu qooyay jirkiisa ayay dhakhaartiitu u sheegeen inay gabadha xaaladeedu xun tahay sidaa daraaddeed intay awoodaan baxnaanin doonaan isaguna uu isdejiyo inankii walwal iyo walbahaar ayaa haysta wejigiisna waxaa ka muuqda murugo aad u weyn waa u xanuun hareeraha garab taagan saaxiibadii iyagoo isku dayaya inay niyadda u dhisaan oo ay dhiirigelinaya waxa uu ku hadaaqayaa ma dhabbay ka ahayd dhalanteed baan moodaye saacado kadib dhakhaatiirtii waxay u oggolaadeen inuu geli karo gabadha indhihiisa waxaa ka burqanaya ilin hadalku wuu ku dhegdhegayaa oo si dhammays ah kuma awoodo inuu u hadlo waxa uu fadhiistay sariirta ay gabadhu ku jiifto madaxeeda gabadha indhaha ayay kala socotaa awood uma laha inay hadasho balse hoos od gaaban ayay ku hadlaysaa ii soo dhawow ayay ku tidhi xaaladeedana aad ayay u liidataa jirkeedu meel fayow ma leh wejigu ha ugu darnaadee iyadoo ilmaynaysa ayay la hadlaysaa mar ayaa kaga tiraya ilinta ka da'aysa waxay leedahay ragga dunida nool kan duur xusee aan ka doorbidow qalbi dooxanoo jacayl u dogo dab ku oogayba kula dardaarmee duduubtiisa dhuuxo anigoo dumara nugul kuu ildaran diif iyo haraad adaa igu daayo farxaddii doraad iga dacal marsho duni kuu nacee daayin waa ilaah nafsi waa duulaan layska daali karin ifkana darta dalambaabiye daarta aakhiran kaaga argudan waa la aamusin kari waayey wuu baroortay waxa uu ka qoomamaynayay sidii uu axdigii uga baxay isagoo gabadh kale oo labaad xiriir la bilaabay isagana dhigayo mid daacad ah gabadhii labaad ee xaasaabuhu ka dhaxeeyey wiilka ayaa maqashay gabdho ay gaadhi wada saarnaayeen oo ka sheekaynaysa gabadhii isgubtay waxayna dhegta la sii raacday sheekadii gabadhii iyadoo leh naa saaxiib heblaayadii jaarkeena hebel daraadii bay isu oo dhakhtarka loo dhigay markaa ay soo booday isgubtay oo miyay waalnayd ragga sanadka ayaa isku jilciya haddaad afgaran weydo isagaa aakhiro loo diraa maye saaxiib aad bay u jeclayd wacadkii ay dhigteen ayuu kaga baxay waa rag xaalkiisiiye mid kale ayuu xaasaabo la bilaabay baa la yidhi gabadhii labaad ee xaasaabahu ka dhaxeeyey markay intaa maqashay naxdin darteed way gariirtay iyadoo hoos ula hadlaysa ayay tidhi allah ma anuu rabay inuu sidaasii si la mid ah ii waxyeeleeyo oo haddaan ogahay inuu gabarh kale la sheekaysto ma anaa juuq u odhan lahaa maanta laga bilaabo waa inaan xidhiirka u jaraa xusku dhacaha markaasay xoos ahaan ka maansootay iyadoo leh qiyaali jaceylo qaa'im jilaayo inaan la khidmeeyo hadhow khasaare qasadna ma awooda qadkaygii maqloo khabiir lugeeya haweenka khafifsho inaad tahay qaa'im khilaafka ma taagna qiyaastii sirtaadu kashifma salaama gabadha xaaladeeda caafimaad waa laga deyrinayay labadii maalmood ee ugu dambeysay xilli laga soo baxay salaadii subax
dhulkuna uu soo caddaanayo waxaa isqabtay qaylo iyo sawaxan xoogan. waxaa la sheegay inay dhimatay gabadhii isgubtay. naxdin iyo anfariir. wiilkii wuu qaadan waayey geerida naxdinta leh ee ku timid gabadha. waxa uu isku duubayaa meydka isagoo leh, way dhimatayaa. ma dhab bay ka ahayd? dhalanteed baan moodayey. erayadan iyo erayo kale oo dadka dhegahooda saamayn ku yeeshay ayuu ku hadlayay isagoo leh, ma dhab baa warkana dhiilada watee dhegahaygu maqleen? ma dhab bay ahayd? way dhimatayoo ciil baa la dhigay. ma dhab baa midaan aan dhul sugayay baa kala dheelmanoo ay dhaceen mar kale? dhaayixii jeclaa inay soo dheehdaan muddaan dheelsadoo aan ku dheelaye. dhaaxaan cidlada aan ku dhaafaye. hadday dhimatay tii aan kama dhaceene. qalbi dhaawacmaan dhakhtar dhayn karayn. subaxii hore waxaa la isku diyaariyey in la aaso. dadka oo dhammi waxay tacsi tiiraanyo leh samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo la wadaagayeen wiilkii iyo gabadha ehelkeeda. balse inanka meyrkiisa ma joogo. markuu wax yar joogaba wuxuu ku xadaaqayaa, ma dhab bay ahayd? dhalanteed baan moodayee. waxa uu yidhi, dhaaxaan soo hunkeeyey ruux hadaf loo. habeen aan lulay beerkiyo xanaqoo. ilayn hansi dumar lagama hadhee. hoogaysay doraato midaan ku huleelay. daraaday haddii loo hebay iilka. tii aan ku hagardaameeyey haddii ay i hiiftay. akuyamaankiyo xiskaa hana qaato. haddaan aniguna hayla dhigayaa. maalinba maalinta ka dambaysa caafimaadkiisa wuu sii liidanayaa ilaa xeer uu gaadhay inuu waasho. waxa uu badanaha hoy ka dhigtay oo uu fadhiistaa meel qashin qub ah una dhow dhakhtarkii ay ku dhimatay gabadhu. timahu aad ay uga baxeen, diifta kaba muuqato, lama moodo inuu marfayoobaa. ugu dambayntii waxaa asxaabtii iyo qoyskii isku raaceen inay geeyaan meel lagu xanaaneeyo xarumaha dadka dhimirkoodu man yahay lagu daryeelo.